barnaamijkeena bandhiga waraysyada radio muqdisho goordhow aad maqli doontaan kulankii madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay la yeesheen haweenkii ka socday baarlamaanka Burundi ay yeeshee maydka dhagarqabo ka tirsanaa kooxda shabaab ayaa maanta lagu soo bandhigay xarunta hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed kaas oo ciidamada ammaanka ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed xalay ku joogteen degmada Shibis markii uu dilay sarkaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda degmada Shibis isagoo goobtii doonaya inuu ka baxsadana isla goobtii lagu joogtay horjoogahaasi la dilay kooxda shabaab ka tirsan oo la yiraahdo Cabdirasaaq Geelle Cabdulle Xamaar waxaa xilligu la dilay uu watay bastoolad nooca makaaruska loo yaqaano waxaana saaka isaga iyo bastooladiisiba lagu soo bandhigay xarunta liska nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed haddaba jenaraal Khaliif Axmed Eren taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa halkaas shir jiraay ku qabtay وحي بدر قبياشة الشباب أما القاعدة وحلي أما المخرج فيه وليس متمثل ثلاث المخرج قبل السكري في سركالة وهي أيضا بالشديدة خاصة تجميل الشديد سوى حوضل كتيرة وشقين هي إن يجادوا وقيسين لمرعان تاسنا أي داوة وقيسين داوة غيري قيسين لو ماشا كتير أسألك على مرتهرين إنا لله وإنا إليه راجعون كعنك حضرن بعد الشيء وهو عامل مهمة وحضرنا لي واجبات الشباب الله ترجلي أصبحوا أديرية جناح الشدة كان شغالية هي وقو وسمي الدين أما أخطر قرن وقيتين واحدة القائد هي الشباب تكلم تقول عيسو على هذا علي محمد أحمد علي أبو صالح هذا ومن هذه في عم ومن أي تكمل الشيء أي كل صفي ومن كسب ويتوعد على الشباب أمام القاعد تكمل الشيء خاصة ومن تشدوا أي آج جعله وحاج لي تكت نجر قبها أنا أركتين هالكاس ميت يسياله وأستغل لك الكيسي فركيو باعي ترجل أستغل داوع وكيسي داوع يوجد هو كل شيء حلي هذا عبد الرزاق جيل عبد الله ومن الشباب ومن القاعدة استغلوا حضرينيا والله تجعل بينك السكالة استغلوا اتباعي أيو كل مركز كوحة تجربياشة القاعدة هي الشباب وحيكون تبرد هذه أما أي كشكية تذكر برشيدة أريد برشيدة قبري تذكر تنسى الشقية تنسى كشكية موضوع عظمة تشكل فهو علينا إن شاء الله ودي لهي لازم ملك السؤال الكلام وكيف السؤال ملك السؤال شو بيريه اللي واتصل السنة وقبرنا ونجعلنا هاي قوة خلاص وكتب بيانا هنا كذا أنا خلاص وقبرنا دي لهي ببت بالي ملك السؤال شو بيريه هنا للمواطنة الصومالية للشعب الصومالي تكال دولتين الإسلام مرنا من بالبادية وفوق يسمي كعنتا كبرني وش دفاعي سكال فيه أستطيع أيام التوبتين وأنا للصوقفتي اكتفاء وصلة سوكالة سلسلة سوكالة وصوقة وجعلها مجالات المقدسية من الجديد اللي كل شيء محطوط ويصور هنا يسا كوحا يريد كأما نوماليتك حبدا أما ضمك أما ضمك عملت بسوريا هنجعلها هذه اللي يعني كانت عنها تصور بالنوع الصوقة وأنا ما أسفل maya hawlgalladu waa socdaan xalay waa samaynay maanta hadda xilligaan idila hadlaya hawlgal baa socda weli oo xalay habeennimo la galay idinka laftirkiinu waxaad la socotaan in kooxaha alqaacida iyo al-shabaab in laga sifeeyey 17 degmo ee gobolka Banaadir marka hal iyo laba dhuumaalaysi ah oo raba inay dhibaato geystaan way dhici kartaa weyni jiraan ayagana waxaan jecelnahay sidaan oo kale loo soo qabto ama la dilo ama asagoo loo soo qabto waan ku guuleysanaynaa insha Allah nabadda waxaan jecelnahay nabadda anaga kaliya kama shaqayn karnaa in bulshada Soomaaliyeed oo ay gacan ugu siiso oo mid iyo labada dhuumaalaysanaya
naloo sheego ama gacan nala ku siiyo ama meesha ay joogaan waa dhamaystirayna haddii ilaahayada waxaa caddaynaya ninkaan nin horey loo yaqaani waaye midda kale waa nin hubaysan waa nin hubkii wax ku dilay iyo goobtii wax ku dilay lagu soo qoray marka caddayn kale uu u baahan yahay ciidan uu ka tirsan yahay ma jirto ninkaani waa kooxda al-shabaab nin sarkaal ah oo hay-adda ka tirsan ayuu si bareer ah u joogto marka nin shabaaba oo la yaqaan waaye ninkaan isagana dhibadiisa wuxuu ka socdaa degmada hodan wuxuu ka socdaa jidadka ilaa ex control ilaa iyo ceelasha biyaha oo isbaarooyinkii ilaa afgooyo oo wixii isbaaro kusoo noqday ama meeshii isbaaro lagu qabto oo dhan la qabanayo marka hawlgalkan wuu ballaaraya wuuna socdaa ilaa hadda tani bal ka waran hawlgalladii aad qabateen ma waxaa jira tiro qayiman oo ilaa hadda aad noo sheegi karto aad soo qabateen hawlgalladan hadda kuwii saafi iyo xal way socdaan markii ay soo gabagaboobaan baan insha allah yani idin yeeri doonaa waan idiin soo sheegaynaa tirada rasmiga iyo cidda lagu soo qabtay iyo waxay kala yihiin jenaraal khaliif axmed ereg taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir ayuu ahaa sida aad maqlaysaan waxa uu ka warbixinayay maleeshiya mid kamid a maleeshiyada kooxda shabaab oo xalay lagu dilay degmada shibis markuu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda ee degmada shibis midkan kamid a maleeshiyada kooxda shabaab ee halkaa lagu dilay magaciisa oo buuxa waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq geelle cabdulle xamaar waxa uu ku dhashay degmada huruwa haddana halkaas ayuu deganaa xogta ay ka qortay hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed oo radio muqdishona ay heleen waxa uu ku sheegay inuu la noolaa hooyadiis waxaana uu sheegtay inuu ahaa arday laakiin shabaabkana uu dhinac ka mid ahaa waxaana uu sidoo kale sheegay inuu degmada shibis u yimid shalay galab islamarkaana uu u yimid inuu fuliyo hawshan haddaba si aan arrintan faahfaahin dheeriya ugu ogaano waxa uu cabdirasaaq geelle cabdulle xamaar oo isagoo dhaawac ah lasoo qabtay markii uu dhaawacay sarkaalkii nabad sugidda ahaa ee uu dilay la keenay xarunta hay-adda nabad sugidda qaranka waxa uu hooyadiis magaceeda ku sheegay faadumo geedi kulane markaa kadib ayaa caawa waxay u suura gashay inaan telefoonka ku helo hooyo faadumo geedi kulane iyadoo joogto gurigeeda waxaanan weydiiyey bal waxa ay ka og tahay wiilkeeda wiilkii arday inuu iskool dhigtaan ku aqaanay oo iskool ablaan la yidhaah uu dhiganayo fasal kuu dhiganayo fasalka famtiri uu dhiganayo haye marka shibisna muxuu ka qabanaya xalay wuxuu ka qabanaya waa midaan la yaababa shibis waaba laqi waayada shibis ogtay haye warku waa kaas wiilkaaga shabaab ma ku ogeyd inuu kamid ahaa maya kuma ana ogey haye kuma ana ogey haddoo dhan hadda hooyooyina dhanna ciyaalkooda iyo shabaab waaba raaceenba oo waa ka reeba waayeenba sax hasi iskaba tageen oo meel hadda ku sheegaan aysan oqoon sax waa dhuumaalaysi iyo si tuugahay ugu jiraan oo adigana madaxa kuu muujayaan marka haddaad joogta haddaad tiraa derbigaana fadhiya haye marka adiga marna ma kala hadasho ka har ma tiri nimankan marna inta ku tigna waa yiri waa ka haya kurkaygan dhigaa haye haddina dalka dhigaa marka isugu kaydshida sax marka goormaa kuugu dambeysay iskoolku ka yimi haye galabtii marka gurigaygana ma jogo dhulkana kamida degiseedeen iskoolku ka yimid galabtii markii casarkii la dukado duga casar ku dukado soo baxay kadib meel waada ma aqaan intana nala soo waxayaa waa dhaawaca hadda oo kale nala yiri qofkiina soo waxdaan qof leedba ma naqaan adiga eedaana moog iyo waa kasabaadeena waa dhitaanku waa heer inkastoo hooyo faadumo geedi kulane uu wiilkeeda cabdirasaaq u ballan qaaday inuu ka baxay shabaab haddana kama uusan bixin hooyaduna iyadoo ka warqabin ayuu wiilku kasii dhex shaqaysanayay dhagarqabayaasha kooxda ka tirsan aakhirkiina xalay noloshiisu waxay ku khatimatay markii uu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed oo degmada shibis si weyn looga jeclaa sarkaalkaasi oo ahaa nin halkaasi ka sifeeyey maleeshiyada kooxda shabaabna ay aada u dhibsadeen waxay usoo direen cabdirasaaq geelle cabdulle xamaar inuu sarkaalkaasi dilo laakiin sarkaalka oo isdifaacay waa uu dhaawacay cabdirasaaq oo doonaya dhaawac inuu la baxsadana waa lasoo qabtay markiiba waxaana la keenay
xarunta hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed isbitaal ku dhex yaala halkaa ayaana la isku dayay xalay in lagu dabiibo ha yeeshee dhaawaca gaaray cabdirasaaq oo cuslaa awgiis daaweyntu kuma filnaan cabdirasaaqna halkaa ayuu ku geeriyooday oo noloshiisa ay ku ilaatay isagoo ah gacan ku-dhiigle dilay sargaal u shaqaynayay dalka iyo dadka waxaana cabdirasaaq geelle cabdulla xamaar ay noo sheegtay hooyadiis da-diisu ay tahay 20 jir islamarkaana cabdirasaaq waxa uu ka mid ahaa maleeshiyada kooxda shabaab kuwooda amniyaadka loo yaqaano ee ka geysta dilalka qorshaysan magaalada muqdisho inkastoo cabdirasaaq uu ahaa dhagarqabe dadka shacabka ee magaalada muqdisho harsiyo hooyaad u diiday haddana hooyo Faalimo markasta waa wiilkeedii waana la qaybsanaynaa murugada ay arrintaa ka qabto inkastoo uu ahaa cabdirasaaq utun ka hartay dadka muqdisho oo qaybo badan ku dilay xaafado ku yaala magaalada muqdisho isagoo ka tirsan amniyaadka kooxda shabaab islamarkaana kooxdaasi amniyaadka waa koox ku caana dilalka qorshaysan ee loo geysto dadka muhiimka waa bulshada sida saraakiisha dhaqaatiirta culummada aqoon-yahanada iyo dadka kale ee waxgalka waa bulshada Soomaaliyeed